haddii lagu yidhaahdo hadda hooyaa dhiig u baahan qofka ugu horreeya dhiigaan bixinaya dhahay waa adiga laakiin waxaa laga yaabaa dhakhtarka markuu dhiiggaaga eego uu hooyana fiiro inuu ku yidhaahdo dhiigga hooyadaa laguma shubi karo waayo isku dhiig ma ahidina dhiiggaa raadi ani calool hooyo waxaan ku soo jiray 10 bilood wax ku dhow 10 bilood wax ku dhow ayaan calool hooyo ku jiray dhiigna waan lahaa anoo calool hooyo ku jira su'aasha muhiimka waxay tahay aniga dhiiggayga haddii dhiiggayga hooyaday maanta haddii lagu shubo ay dhib uu soo gaarayo ama keeda haddii lagu shubo dhib uu soo gaarayo 10 bilood calool hooyo aan ku jiray waxaa noo dhexeeyay xarig 3 taaka oo ilmaha markay dhashaan la gooynayo xudunta wax walbaba wixii hooyo iga aan uga baahanahay waa la ii keenayay wixii wasakdeeda ana hooyada lagu soo diray waa la soo celinayay su'aasha markiinka marka waxay tahay calool hooyo markaan ku jiro dhiig waan lahaa labadeena dhiig yaa kala ilaalinayay ilaa hooyo waxa haddaan dunyada soo baxay dhiiggaaga laguma shubi karo adeena dhiiggeeda laguma shubi karo labadeena dhiig yaa kala ilaalinayay wa fi anfusikum afala tubsirun adduunya intaadan iman ayaa la naga warqabay oo lana hagaaya oo lana qurxinay si qurxoon ilaahay uu noo sameeyay ilaahay wuxuu noo sameeyay waxa loo yaqaan mashiima ama loo yaqaan placenta hooyo wixii wax markay ka yimaadaan hooyo waxa ka imaanaya cuntadii aan u baahnayn waxa ka imaanaya oksijiinta aan u baahnayn waxa ka imaanaya dawadii aan u baahnayn hooyo markii laga soo qaado waxay soo maraysaa warshad loo yaqaan mashiima oo ilmaha markii la dhalo soo raacda mashiimada maxay sameynaysaa waxa la sifeynayaa wax alla wixii ilmaha u gudbaya wax alla wixii ilmaha dhibaya waa laga reebayaa meeshaas waxa adiga gudub adiga joog adiga gudub adiga joog ayaa waxa lagu sameeyaa mashiimada lagu sameeyaa mashiimadaas albaabkeeda dambe xuduntan anaga nooga dhagan markaan dhalana la gooynayo albaabka labaad ee kaga dhagan tahay wixii soo gudba kaliya bay soo qaadaa midan xudunta xariga xudunta nooga dhagan waxaad isweydiisaa hooyo bini aadamka noogu dhow hooyo door ma ku lahayd sameynta mashiimada aaba door ma ku lahaa sameynta mashiimada meesha waxaad ka fahmaysaa in la naga warqabo si qurxoon ilaahay uu noo sameeyay inuu ilaahay si qurxoon noo sameeyay oo waxaan u baahanahay dhal inooga adeegayay oksijiin markaan bannaanka imaana sankeena shaqeynay laakiin markaan caloosha hooyo ku jirno caloosha oksijiinta hooyo soo qaadata annaga la nooga keenaa la noo marsiyaa saxaradeena iyo kaadideena wixii yimaada hooya lagu soo celiyaa si qurxoon uu ilaahay noo sameeyay